qabri dahar waa xarunta maamulka gobolka Qorraxay waxayna xarun ay u tahay 10 degmo oo gobolka Qorraxay degmada ugu fogay qabri dahar ay maamusha waa degmada Marsin waxayna u jirtaa qabri dahar 180 kilomitir qabri dahar waxa ay sameysay kobac iyo sarowka dhanka horumarka ah oo la taaban karo isbedelkii kadib labadii sano ee u dambeysay waxay magaalada qabri dahar laga dareemayaa naaw ay ku diirsadeen shacabka reer qabri dahar oo ay kala siman yihiin bulshada deegaanka oo dhanka xorriyada ageesta kale waxa la bilaabay oo ay bulshadu ay sameysay isbedel weyn oo dhanka ganacsiga ah dhismayaal kala duwan iyo inay magaaladu ay noqoto mid maalinta ka dambaysa ay dib ugu soo laabtaan dadkii ka hayaamay hagardaamadii iyo cabudhiskii kooxihii TPLF iyo xubnihii garabka u ahaa ay ka geysteen magaalada qabri dahar sidoo kale qabri dahar oo lagu tiriyo marka la eego deegaanka dadka ugu badan ee dadkoodu ay jiraan qurbaha ayaa kaalin muuqata aynan ka qaadanin qurba joogta kobaca magaalada waqtiyadii hore sababo la xiriira dhibaatadii TPLF ee deegaanka ay ku haysay balse hadda waxa iska soo daba hoobanaya qurbo joogta reer qabri dahar oo hantidooda ku bineynaya dhismayaal iyo ganacsiyo kala duwan isbedelkii kadib magaalada qabri dahar wixii ku soo biiray iyo sidii maaragtay hadii la yiraahdo ay u socoto markii la eego xagga dhismaha iyo maxay ahaayday magaalada bilicdeeda wax aad u fara badan baa ku soo biiray oo maaragtay hadii la yiraahdo dhismo ah ganacsigu wuu soo biiray oo waxyaabahan kale maaragtay dadka dhalinyarada aad bay u soo fahmayaan ganacsiga u soo fahmayaan meheradaha aad bay u soo fahmayaan hadii la yiraahdo boqolkiiba boqol way fiican yihiin magaaladu waa isbedel weyn baa ku yimid aad baa loo dhistay dadku wuu soo noqonayaa kulkii nabadii iyo amnigu dhacday dad far badan baa yimid kuwii Nairobi iyo Kismaayo ka soo noqday kuwii galbeed ka soo noqday kuwii ilaa Djibouti jiray wixii dadka xirxirka iyo dhibaatada iyo nabadgelyadiisa baa dadka magaalada ku soo wada noqday magaalada marsaa darteed dad badan baa yimid oo aad bay hadda magaalada dadkeedu u shidan yahay oo u badan yahay magaalada xagga ganacsi furfuran baa la helay waxa magaalada laba barbar waxa ka fadhiya finaas allaale wixii soo galay wala dhacay ganacsigu waa ganacsi xora nin walba kabtu doono intuu tago wax ka keenaya marka ilaahay xamdiga nabadgeliya la helo amnigaana waxa keenay annaguna ku fogaanaynin dhanka horumarka ay dawladdu ay ka wado magaalada qabri dahar oo tiro badan balse waxaanu dul istaagi doonaa dhanka wadooyinka iyo leedhka 24 saac ee magaalada ay heshay leedhkan ayaa waxa la is oran karaa waxa uu kaalin muuqata uu ka qaatay bilicda iyo horumarka magaalada qabri dahar hagaajinta iyo qurxinta ama bixinta wadooyinka waa waxyaabaha isbedelka weyn ee magaaladu ay ku dhaqaaqday lagu tiriyo wadooyin la wado iyo kuwa dhamaaday oo iskugu jiray kuwa laami ah iyo kuwa la dhigayo dhagaxa qoran ee loo yaqaano cobblestone-ka dhanka biyaha daraasad la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in magaalooyinka waaweyn ee deegaanka sida Jigjiga Dhagaxbuur qabri dahar iyo Goday ay tahay magaalada ugu helida wanaagsan dhanka biyaha ay tahay magaalada qabri dahar waxaana ay bulshadu ay heshaa biyo nadiif ah oo ku filan asi kastaba ha ahaatee magaalada qabri dahar ayaa ku socota horumar xawli ah oo ay sabab ay u tahay isbedelka iyo naacawda dimuqraadiyadeed ee heleen bulshada reer qabri dahar waxay indhahaagu ay qabanayaan dhismayaal hor leh oo magaalada markaasi laga hirgeliyay goobo ganacsi oo hadda ka hor aan jirin oo markaasi laga yagleelay sidoo kale waxa magaalada soo buux dhaafiyay dadyo kala duwan oo dabcan aan hore u joogi jirin iyo kuwa u dhashay magaalada qabri dahar oo siyaabo kala duwan hadda ka hor uga cararay waxayna magaaladu ay ku talaabsanaysaa maalinta ka dambaysa intii isbedelkii ka dambeysay horumar si xawli ah ku socda oo markaasi ay bulshadu ay sameynayso geesta kale waxa ka socda mashaariic horumarineed ay dawladdu ay ka hirgelinayso magaalada oo isla markaana bilic iyo horumarba markaasi ku soo kordhinaya Lumaan Cabdi Axmed iyo Kabarmaan Cabdiraxmaan Nashaad SRTV magaalada qabri dahar